السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka Nimco official walaalahay Soomaaliyeed meel walba oo joogtaan waa idin salaamayaa see la yahay ma la fiican yahay xaaladiina ka warrama maanta meeshan aan iska fadhiyaa quruxda badan biyahan agtiisa adduunka waa laba cisho walaalayaal waa inaan iska baxbaxo maxaa meeshan guri haddaad ku xidhnaato stress iyo buuq baad ka qaadaysaa yaa anigu baadhi ina ma aqaano baadhiyada dadka aado stresska aad ku soo qaatana ma ihi marka meelahan aan iska tagaa markay maalmihii tahay habeenkiina ma aragti gurigaaga ku huran laakiin Canada haddaad meelaha aadi weyso oo soo socsocon weyso oo aad air maad soo aragtay fresh air aad soo qaadan weyso oo ma aragtay caruurtii aad la soo socsocon weyso walaahi guriga waxaad ka qaadaysaa stress iyo buuq waad ka qaadaysaa adoon stress kale ku haynin guriga saad ugu xidhan tahay ma fiicna waad ku xanuunsanaysaa marka inaad banaanka aado oo soo socsocoto way fiican tahay marka kaasan joogaana maanta halkaasan joogaa yaa halkaasan joognaa maxay baan joognaa heesta maxay ahayd marka walaalayaal waa sidaas xaaladiina ka warrama dadkii ma aragtay sponsorka commentiga dad waxaan arkay ku soo qoray Nimcooy noo soo gali sponsorkii waxaas marka Canada sponsorka iyo ma aragtay waxaas insha Allah waxbaan idinka taaban doonaa iyadoo full video ana waa idin soo galin doonaa informationkaas waa idinku maqanahay marka Canada waxyaabo badan baa ka jira international studentiga oo kaleeto way imaadaan sponsor group 5 waa jira nin iyo naagna waa la keenaa taasaaba ugu fudud Canada waxa ugu fudud oo lagu keenaa dadka waxa weeyaan inaad ama naag ama nin iyo naag isqaba oo isguursaday ay soo sponsorayaan iyo inaad ilmo aad u soo dacwoonayso labadaas ugu fudud marka waxaan kale waqti u qaadanayaa marka hadda sponsorkana waa la fududeeyaybo oo dadka waa loo fasaxay Canada dad badan ma haysato oo u baahan tahay more people bay u baahan tahay marka meesha joogtay ku xidhan tahay waxa ugu fudud ee lagu yimaan karaa sida ugu dhaqsaha badan waxa weeye haddaad nin tahay inay xaas ku soo dacwooto oo xaasnimo kugu soo dacwooto iyo haddaad naag tahay inuu ninkaaga xaas kugu soo dacwoodo ama ninkaaga uu ku soo dacwoodo ama xaaskaaga ku soo dacwooto talabaadna waxay tahay inuu ilmahaaga aad u dacwoonayso oo waalid tahay waalid ilmihiisa ka yimid baa ugu fudud iyadana international studentiga na waa imaadaan aad bay u imaadaan adduunka meel walba ka imaan karaan kulay meelaha qaar war uma hayo Soomaaliya oo kaleeto in laga soo qaado laakiin adduun weynaha waa laga soo qaadaa marka taasi waa taas hadduu Ilaahay kuu qoro meeshana waad imaanaysaa si aad ku timaado anagu waa tagisan isma lahayn waxa weeyaan anaga markaan joognay wadankiina laga soo qaaday isma walan lahayn Canada tagisan laakiin nasiibkanaga ma aragtayna keenay marka haddii lagu qoray si walba oo u dadaasho waa imaanaysaa haddii aan lagu qorin si walba oo u dadaasho ma imaanaysid marka taasna ogow waxa weeyaan marka khiyaarta waa saas wixii akhbaar information ana waa idin la soo socodsiin doona insha Allah channelka si uu dad badan iigu gaaro share-na hala ii dhaho subscribe-na hala ii dhaho waxyaabo badan haddaad ani dhiirigelisaan waxyaabo badan ayaan idin soo sheegayaa oo ma aragtay intaan raadiyo aan idin la soo socodsiinayaa oo idin soo bandhigayaa soo dhiirigelintu waa xaqiina haddii aad u baahan tihiin more information inaan idin soo sheego maalin walba subscribe-ta hala ii badiyo oo share dadka iigu share gareeya oo channelkaygu dad badan si ay u arkaan ii share gareeya subscribe-ta like-ta hala ii saaro gambaleelka furta marka aniga aad tustaan inaad xiisaynaysaan anaaba dan u aadayo ofisyada dawladda oo wax walba soo wareysanayo Soomaa
wax walba intaan saa u soo wareysto saas intaan u soo wareysto ayaan idin keeni lahaa sooma laakiin haddii aydan iba share gareynayn laagtana ii badinayn maxaan sameeyaa niyaduba ima dhisna soomaha khiyaarta intaasina waa kaftan marka walaalahay waa idin jecelahay sidaad maaragtay aad ii dhiiri gelinaysaan eed ii soo dhaweynaysaan ayaan anigana idin jecelahay soo dhawaada ilaahay waddankeenana nabad ha nooga dhigo dhibaatadana ilaahay naga qabto ani Soomaalinimada waan jecelahay dadkayga inay maaragtay waxay jecel yihiin aanu sheegana waan jecelahay naxariista iyo walaaltinimada iyo Soomaalinimada ani aad bay iigu badan tahay wanaagana inaan dadka u sheegayo wixii faa'iido laga helayo waan jecelahay marka idinkuna sidoo kale walaashiin videoga markii soo geliso like loo saaro share ha loo dhaho subscribe dadka cusub ha ii saaraan Canada waa qurbe weeyaan Canada waa qurbe aad maaragtay qurbayaasha aan hadda Mareykanka Yurub iyo maaragtay Canada waxaan isdhihi karaa waa meesha ugu fiican ee safety ah xaq dhaqaale haday noqoto ama dhaqaale inaad shaqaysatana Mareykanka ayaan dhihi karaa way Mareykanka anaga neighbor baan ahay waxaan nahay daris waan la socdaa isagana akhbaartiisa isagana haddii aad u baahan tihiin akhbaar fuula ana idinka soo sheegay Mareykanka laftigiisa marka Canada waxay safe ku tahay haddii dhibaato lacala ay ku soo dhex gasho oo maxaa la dhihi jiray ilmaha iyo waxaas ku soo dhex gasho caruurta sida Yurub durba looga qaatay dadka lagaaga ma qaadanayo xagga dilidoo kale waa ku yartahay iyada Mareykanka nagaga badan dilid iyo waxaas iyo ilmahan isdildilayo waxaas waa safe baan dhihi karaa Canada meel family ku noolaan karana waa tahay waa markay waalidku laba qof oo adag yihiin oo caruurtoodii u soo jeeda laakiin marka tahay waalid caruurtii aan u soo jeedin caruurtaada waa halaabaysa yaa mar walba waa inaad ilmahaaga meesha joogtaba ilmahaaga in aad prioritize garayso oo ilmahaaga ka warhaysaa wanaagsan ma ahan inaad shaqayso oo orodo oo lacag iyo wax ka fikirto waa inaad ilmahaagana time geliso waa qurba joogtaa ilmahaagana la socota waa muhiim hooyadana waxa fiican ilmaha inay ka warhayso aabuhuna soo shaqeeyo maadaama noloshii adag tahay labadii waalidba ay shaqaynayaanna still haddana iska dadaala marka ani intaas ay idin dhihi lahaa waxa weeyaan intaasina waana iga tahay walaalahay meel walba joogtaan marka wakaasa Canada waa qurba kulay waa qurbe noloshu way adag tahay hadii qurba la dhaho qurbe noloshiisu ciyaar ma waxay nagu soo badanayay family problemka dadka kala tagaya waalidka ah caruurta hooyada bas jiidayso waxaas oo dhan baa nagu badan hooyana sideedaba caruur ma korin karto kaligeed caruurtu hooyo kama haybeysanayaan kama cabsanayaan aabe ka cabsadaan marka ani waxa idin dhihi lahaa caruurtiina isugu samra qurba hadii la joogo furitaanka hala yareeyo isu samra caruur baa isu dhasheen isu samra dhaxdiina xalista ninoo caruurtaada ha ka tagin gabadhay ninkaaga adiguna u samir marka saasaan anigu idin kula talin lahaa walaalahay waa idin jeclahay inta waanadaana waana idin soo gelinaya waanada qaata yaa waa intay ku socoto intayna qusayniina maba qusayso dad dhalinyaro tahayna kuma qusayso sheekadaas sooma marka way idin kaasa subscribe ta naga halmaamina insha Allah like noo saara videoga YouTube kana subscribe la saaro insha Allah video qurux badan oo Canada iyo waxa group 5 ka kulli ana idin soo sheegay insha Allah lacagta group 5 ka lagu xareeyo everything ana idin soo sheegay insha Allah idinku i tusale dhiirigelintii waa xaqiina